hawshaas doorashooyinka inaan wakiisho tiina alxamdulillaah nabadoon la yiraahdo iimaan maxamed xasan ayay tolkii ku soo heshiiyeen ama jifadii kursiga leed ay ku soo heshiisay in uu yahay ninka aan wakiilanayo guddigii goobjoogka ah ayaan soo wakiishay iimaan nabadoon iimaan maxamed xasan sidaas daraaddeed si wanaag badan ayaan usoo dardaaranay in 51dii la qoro isaga iyo 4 odayo kale hawshaasi si qurux badanna ay ku dhamaatana waa ku soo ballannay waan wada xiriirnay waqti walba xiriiradeenan aad ay u fiicnaayeen 51dii xubnood way ku heshiisay jufadii kursiga lahayd ee beesha gaaljecel doqondiide alxamdulilah 51dii waa la kala qaatay sidii walaal loo ahaa wax loo wadaagi jiray loo wadaagay waxaan marka aad iyo aad dhagta iyo waxa aan ka sugaynay kursigaasi xilliga doorashadiisa ay dhici doonto iyo ciddii ilaahay u calfo 3 musharax ayaa u tartamaysay iyo ciddii ilaahay ka soo saaray ayaan u ducaynaynay inuu ilaahay barakeeyo meeshii waxa inaga soo gaartay cabasho iyo waxyaabo badan inay ka jiraan runtii arrintaasna waa ka xunnahay runtii maadaama waxaan nidaam leeyihiin guddigii doorashooyinka heer federaal iyo heer gobolna oo meesha ku sugan yahay 51na ay beeshi keensatay waxaan sugaynay in kursigaasi lagu tartamo codna lagu kala baxo ciddii ilaahay guuleeyana tolka ay madax u noqoto tii ma dhicin sida aan ka warqabno waxyaabo badana meesha inaga soo gaaray ergooyin mataqaanaa ee 51dii aan ahayn in la soo bedeshay ayaan wararkaas aan maqalnayoon oona noola cadeeyay maanta oo ugu dambeysay waxaa na soo gaartay maalin 19kii bishaan hadda aan ku jirno mar loogu talagalay maalintaas doorasho in la sameeyo waxyaabo ayaa dhacay oo mataqaanaa isdabamaris ah tiina kursiga sidaas darteeda loo joojiyey sida aan dad xog ogaal ah ay ii soo gudbiyeen oo ka mid yahay nabadoonka maanta oo ugu dambeysay 51dii sharciga ahayd ee beesha ku heshiisiyo la qoray waxaa maanta la geeyey 8 bas inay ka tagtay oo 43 kaleentana dad meelo kale ka yimid ay yihiin sidaas daraaddeed waxaan ka codsanayaa dowlad goboleedka Jubbaland ee kursigaasi mataqaanaa uu ag yeelo madaxdeeda iyo guddiga doorashooyinka dadban ee heer gobol iyo midka heer federaalba arrintaasi in ay cadaaladda eegaano sida ay shacabka ama jifadaasi ay wax u soo xulatayna loo tixgeliyo 51dii ay soo xulatay keensatayna ay u codaysay 3 musharax ee walaalaha ah taas ayaan aad iyo aad kaga codsanayaa wax badana meesha laga sheegayaa runtii waa ka xunnahay arrimahaas inay dhacaano oo ay weliba beesha si khaas u qabsadaano waxaan leenahay hadday doorasho tahay meeshii 51na lagu heshiiyey 51dii liiskooda la gudbiyey la sawiray koobigooda oo nabadoonka haysto in la tixgeliyo cadaaladana lagu dadaalo haddii alla idmo maantana waa la joojiyey haddii lagu celinayana 51dii liiskooda foomka sawirkiisa la haayo ee ay beesha geysatay inay 3daas musharaxo walaalaha u codeeyaano qofkii ilaahay uu idmo oo ku guulaystana lagu qanco wax kaloon aan ahayn anaga raalli kama ihi aniga khaasatan aniga iyo wakaalada samaystay oo waaskii beesha ahayna waxaas dhacaya waa ka xumahay waxaan leeyahay dadka walaalaha oo isla dhashay yaanan la isku dhibaataynin yaanan calool xumo la kala gelinin 51daasi oo sharciga ah oo lagu heshiiyey ha tagto meesha 3 musharaxna meesha ha tagto ciddii number badnaato sida sharciga ku guulaysatana hala soo gudbiyo wixii aanan ahayn ma aqoonsan doono mana aqbali doono waxaan codsanaynaa si cadaalad ay ku jirta sharaf ay ku jirta dadku waa isku dadkii in ay farsamo xumo dhicin qaladaadka aan maqlaynana aad iyo aad ayaan ugu xunnahay waxaan codsanaynaa balaayada waxaa la yidhaahdaa inta yar tahay ee qabasho leedahay hadday yar tahay waa badan tahayna waa la soo yareeyaa hadday badan tahayna yar tahayna waa la baabi'iyaa codsi waxaan soo jeedinaynaa si dhaqsa arrintaas in looga hortago qaladkii dhacay oo aan maqalnay inuusan sii soconin sida ogaaskii annagoo nabadoonadeena ka midlay sidaas oo kale ay ku dhawaaqay dhibaatooyinka laga sheegaya
maamul goboleedka Jubbaland dowlad goboleedka Jubbaland aad iyo aad aan ugu xumaanay waa meel kasta waxay leedahay wakiilka ogaaska uu meesha u joogana waxa waaye asagoo matalaya meel hoggaan laheena ma lagu dhaqmaayo waxaan isleenahay in hadalka ogaaska la tixgeliyo waxaan isleenahay in laga daayo fargelinta kala waxaan isleenahay in loo daayo wakiilka meesha u joogo ogaaska beesha Gaaljecel annaga waxaan ku taageersanahay wuxuu asaga taageersan annagana taageersanahay waxaan leenahay waxaan raad leheen hadhow dhibay keenayaan hal laga daayaan leenahay